Mahad Maxamed Salaad agaasimihii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA ayaa maanta si rasmi ah u wareejinaya xilka hay'addaasi. Waa maxay waxa lagu xasuusan doono Mahad Salaad muxuuse kaga tegay diiwaanka hay'adda sirdoonka Soomaaliya? Su'aashaas waxay tahay muxuu NISA ku soo kordhin karaa Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbalolshe? Warbixintan ayaan ku dul istaagi doonaa. Maanta oo Talaado ah Mahad Maxamed Salaad ayaa si rasmi ah u wareejinaya xilka taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA ee khamiistii aynu soo dhaafnay golaha wasiirada ay si wadajir ah ugu magacaabeen Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbalolshe oo markii saddexaad xilkani qabanaya. Munaasabad kooban oo lagu qabanayo magaalada Muqdisho ayuu maanta si rasmi ah xilka ugula wareegi doonaa Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbalolshe. Mahad Maxamed Salaad oo xilkan haye labadii sano ee la soo dhaafay 26 bishii May sanadkii 2022 ayaa golaha wasiirada ee xiligaasi waxa ay xilka taliyaha sirdoonka Soomaaliya u magacaabeen Mahad Maxamed Salaad. Haddaba ku dhawaad 2 sano oo xilkani uu haye Mahad Salaad maxaa uu qabsoomay? Maxaysa shacabka Muqdisho ku xasuusan doonaan? Muddo 2 sano ah agaasimihii hore Mahad Maxamed Salaad ayaa si weyn ugala diray magaalada Muqdisho kooxaha argagixisada in sidoodii hore ay dilal qorsheysan iyo qaraxyo uga geystaan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Mahad Maxamed Salaad waxa uu noqday agaasimihii ugu horeeyay ee ay yeelatan nabad sugiddu kaas oo si rasmi ah hay'adda ugu sameeyay sharci isla mar ahaantaasina qaybna kaga dhigay ciidamada qaranka ee sharciyada ku shaqeeya. Ka hor Mahad Salaad hay'adda sirdoonku waxay ahayd mid aan lahayn sharci isla mar ahaantaasina aan tixraac lagu sameyn karin marka loo eego dambiyadii ay geysan jireen taliyaashii kala duwanaa ee hay'addan soo maamulay gaar ahaan 5 sano ee la soo dhaafay. Wuxuu xakameeyay doorkii NISA ee ku milanka siyaasadda iyo falalkii lidiga ku ahaa shacabka Soomaaliyeed ee lagula kici jiray taas oo aan lahayn ka daba tag. Mahad Maxamed Salaad wuxuu noqday agaasimihii ugu horeeyay ee hay'adda sirdoonka Soomaaliya u yeelo meel cabashadu ay ku gudbi karaan shacabka ama haday ahaa lahayd tabashooyinka ay ka qabaan ciidanka hubeysan ee hay'adda sirdoonka Soomaaliya ee NISA. Mahad Salaad wuxuu noqday agaasimihii ugu horeeyay ee hay'adda sirdoonka Soomaaliya ee amar ku bixiya in magaalada Muqdisho gebi ahaanteedba goobaha ganacsi ee ku yaala in lagu xiro kaamirooyin taas oo waqtigan la arkay natiijada wanaagsan ee go'aankaas ka dhashay ee uu ku dhaqaaqay Mahad Maxamed Salaad. Waxyaabaha kale ee agaasimaha maanta xilka wareejinaya Mahad Salaad lagu xasuusan doono waxaa ka mid ah dhismaha ciidanka hay'adda. Wuxuu la wajibaaray ciidanka sirdoonka Soomaaliya degmo kasta oo caasimadda Soomaaliya maanta waxa ay leedahay ciidamo intii uu yimid ka hor kuwa ka badan. Sidoo kale waxaa la kordhiyay oo la tayeeyay ciidankii gobolada ka howlgalaya ee hay'adda sirdoonka Soomaaliya. Waxay waqtigan ciidanka muuqda ee hay'adda sirdoonku door weyn ka qaataan dagaalada ka dhanka kooxda ee ka soconaya labada gobol ee caasimadda dariska la ah ee Shabeellada Hoose iyo Shabeellada Dhexe iyo gobolada bartamaha Soomaaliya ku yaalo kuwaas oo si rasmi ah ciidanka hubeysan ee hay'adda ama qaybahooda kala duwan ay ka howlgalaan. Adigan daawanayo warbixinteeda haddii aan ku weydiiyo maxaa ku xasuustaa agaasimihii hore ee hay'adda sirdoonka Mahad Salaad? Dhinaca kale se Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbalolshe ayaa markii saddexaad maanta si rasmi ah u noqonaya ama u qabanaya xilka taliyaha hay'adda sirdoonka kolkii uu kala wareegay xilkan Mahad Maxamed Salaad kaas oo saacadihii aynu soo dhaafnay kormeer indheena taliska iyo guud ahaanba macadka hay'adda ku geeyay taliyaha cusub ee maanta xilka la wareegaya Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbalolshe. Dadka yaqaana Sanbalolshe waxay sheegaan inuu yahay nin go'aamo adag ayna ka go'an tahay sugidda amniga Muqdisho go'aano qaraarna u qaatay intuu taliyaha nabad sugidda soo ahaa muddooyinkii Muqdisho ay wajahaysay falalka lidiga kuwa ammaanka. Dadka yaqaana sidoo kale waxay sheegaan marka loo eego howlaha shaqo ee uu qaban karo waxa ay ku tilmaamaan inuu yahay nin aan hoos uga dhigin waqtigan halka uu joogo amniga Soomaaliya inuu sare uga qaado mooyaane.